السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة بدن هل كان نجد دعوان إنسان وشانل كعرض عاشق قف كيدن لهذا لينا وساحبكين عبد الله محمد عبد CMC مركلة يم مقال عصب. اسكتونا قدونا أصحاب قيمة بدن فضلا أنت أنا مقال كجودك جن هديات نقول عصب تهي سبسكرايب له جنال كمبرال كفروسي مقال لنا عادوا نقطة تقف كجوري سوجران سيدوك كلا لايك نقول يرجلي سين شير جري مقال كسو أصحابنا نجارو وحي ترى يتسالون نقول وذاك قيبتا كومنتيجا وتكون عسنت هاي داوشة ذي لصوتك مقال ذي وهجاك مقال كان ما أنت وحنا وهل دونا فائدين كعافمات أولية هاي صنكا حاجة ديجا دفنك معانك ميزانك ديرات كاية وحي لمدة مركا لقتكو إن صنكو يهي تيرك أفراد tiirarka islaamka iyo cibaado ay tahay in qof kasta oo muslim ah qaan gaaray oo caafimaad ahaan awooda in uu soomo laakiin in uu soonka caafimaad u yahay ruuxda waxa uu dheer in uu wax badan taro caafimaadka guud ee qofka jid ahaan iyo nafsi ahaan labaduba sida ay daraasado kala duwan isku daba mareen qofka oo sooma oo mara nidaam cunto qaadasho oo caafimaad ahaan saxan waxa uu soonku u yeeshaa raad la taaban karo faa'iidooyinka soonku u leeyahay dadka waxa aynu ku soo ururin doonaa muuqaalkeenan kow faa'iidada uu leeyahay dhiigga soonka waxa uu kordhiyaa tirada unugyada dhiigga cascas iyo kuwa cadcad waxa uu sidoo kale kordhiyaa xaddiga xinjirka dhiigga uu u baahan yahay labo dufanka soonka waxa uu yareeyaa heerka kolestaroolka dhiigga waxa uu kordhiyaa heerka kolestaroolka loo baahan yahay waxa uu jidhka ka saaraa dhammaan noocyada dufanka iyo kolestaroolka ee aanu jidhka u baahnayn ama dhibaatada ku keeni kara saddex miisaanka soonka waxa uu si weyn uga qayb qaataa miisaan dhimista inkastoo ay khubarada caafimaadka sheegeen in miisaanka soonka ku dhaca uu soo noqdo si dhaqso ah soonka kadib waxa uu yareeyaa xaydha ama baruurta ku ururta sinaha iyo wareegga hoose ee caloosha waxa uu furfuraa dufanka ku guntama dhiigga iyo guud ahaan jidhka qaybihiisa kala duwan afar dhiigkarka soonka waxa uu hoos u dhigaa xaddiga dhiigkarka qodobka shanaad macaanka soonka waxa uu dejiyaa aadna ula dagaalamaa kicista macaanka ama sokorta qodobka lixaad kansarka soonka waxa uu la dagaalamaa ololka iyo kaarka waxa uu furfuraa unugyada dheeraadka ah ee kansarka keeni kara waxa uuna hoos u dhigaa dhammaan xaaladaha qofka ku keeni kara kansarka toddobo nafsada soonka waxa uu nafta u abuuraa xasilooni waxa uuna xoojiyaa ruuxda sida awgeed waxa uu meesha ka saaraa ama aad u yareeyaa xaaladaha kala duwan ee nafsiga ah sida walaaca iyo warwarka iyo wixii la mid ah talooyin caafimaad oo kaa caawinaya in aad soonka jidhkaaga uga faa'iidaysid in qofka uu helaa faa'iidooyinka tirada badan ee soonku waxa ay ku xiran tahay hadba qaabka uu dhaqmo qofka gaar ahaan dhinaca cuntada haddaba waxa ay khubarada soo jeediyeen talooyin caafimaad oo soonka ku habboon waxaana ka mid ah kow cuntada oo aan la iska badin labo khudradda noocyadeeda kala duwan oo aada loo isticmaalo saddex cuntooyinka dufanka iyo sokorta leh oo la iska yareeyo afar jimicsi jidheed oo la sameeyo laakiin haddana aan la iska badin shan sigaar nuugista oo la iska daayo marka aynu si gaar ah u soo qaadano sida ugu habboon ee soonka miisaanka ku ridi karaa waa in kow cuntooyinka la cunayo oo isbeddel joogto ah lagu sameeyo isla markaana lagu eego halbeega caafimaad in ay buuxiyeen labo jimicsiga oo la joogteeyo saddex wax ka beddel lagu sameeyo habdhaqanka cunto ee qofka waa hagaag intaas waxaanu ku soo gabagabeyn doonaa muuqaalkii yaraa ee aan uga hadlaynay faa'iidooyinka faraha badan ee uu leeyahay qofka bini'aadanka soonka
inta aanu ku kulmi doono muuqaalka xiga waa saaxiibkiin Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC iyo channelka Orod Caashiq oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.